guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta deeq lacageed oo dhan 120 milyan oo shilinka Soomaaliland waxay kala wareegeen maamulka gobolka Murudijeec lacagtaas oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan taakulada dadka abaaruhu saameeyeen kuwaas oo haatan gaadhay in ka badan 170,000 oo qoys. guddoomiyada deeqdan lacageed waxa goobjoog ka ah wasiirka diinta iyo awqaafta gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka iyo afayeenka madaxtooyada oo kamid ah xubnaha guddida. ugu horreyntii gudoomiyaha gobolka Murudijeec Professor Axmed Maxamed Cadeed oo halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyay deeqdan lacageed ee ay ku wareejinayaan guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha. maanta ay taariikhdu tahay 23 bishii 12aad 2025 waa haddaanu nahay maamulka sare ee gobolka Murudijeec aanu halka kan hornimid guddida abaaraha ee qaranka taakulaynta abaaraha ee qaranka odayaasha qiimaha leh ee ka wakiilka madaxweyne ku-xigeenka wasiirka iyo wasiir Cabdilaahi Baashe iyo gudoomiyaha ka hortagga aafooyinka iyo Xuseen Deyr oo ah afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan maanta halka kale aanu imid inaan qadar lacag ah oo ah 120 milyan oo shilin Soomaaliland ah inaan ku wareejiyo guddida abaaraha ee qaranka si loogu taakuleeyo loo gaarsiiyo dadka ay aafeeyeen abaaruhu oo biyo baad la'aan ay ku dhacday. sidaa darteed waxaan ka codsanayaa ummadda reer Soomaaliland oo dhanna dawladdu maadaama ay ku dhawaaqday in waddankeena abaara ka jiraan iyo biyo la'aan iyo baad la'aani in cid kasta oo wax tari karaysa dadkeenaas ay u damqadaan qofka shilinka ama 10 kun ku deeqaya ka halka dollar ku deeqaya ka in ka badan ku deeqayaaba inay u dadaalaan. dhankiisa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Cabdilaahi Daahir Jaamac Baashe oo sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha oo halkaas ka hadlay ayaa maamulka gobolka Murudijeec uga mahad celiyay qaaraanka ay soo gaarsiiyeen waxaana uu intaas ku daray in abaaraha dalka ka jira ay soo kululaadeen saameyntooduna ay aad u korodhay isagoo tilmaamay in baahida ugu ballaaran ee xilligan taagan ay tahay dhanka biyaha. waxa uu sheegay in loo baahan yahay gurmad aad u ballaaran isagoo u mahad celiyay cid kasta oo hore uga qayb qaadatay gurmadka abaaraha weeba ka bariyay inuu abaaraha inaga soo jabiyo. halkan maanta waxaanu deeq lacageed aynu kaga guddoonnay barasaabka gobolka Murudijeec Professor Cadeed oo 120 milyan halkan jeeg ay ku qoran tahay nagu wareejiyey oo ugu talagalay in lagaga qayb qaato gurmadka abaaraha. aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa professorka. waa nin runtii waxgarad ah, waa nin aqoon-yahana, waa nin dadkiisa u damqaday inuu dadka reer Somaliland in uu intaa maaragtaa 120 milyan uu ugu deeqo. aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa. allaha ku barakeeyo, ilaahay xilka qaranka aad u hayso ha kugu guuleeyo. run ahaantii dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u sheegaynaa in runtii abaartu ay aad iyo aad ay u soo kululaatay, xaaladdeeduna ay u adkaanayso. inkastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaadkiisii aynu hoos joogno oo ilaahay aynu baryayno oo runtii jawiga cirka ka muuqdaana uu maalmahan dambe uu fiican yahay. baahida ugu ballaaran ee maanta taagan waxa weeye waa biyo la'aan. gobollada maaragtaa ha lagu sii kala daraado, laakiin runtii gurmad ballaaran ayaa loo baahan yahay. marka hadday tahay hay-adaha dowladda iyo hadday tahay madaxda ganacsatada intaba waxaan ugu baaqaynaa in arrimaha gurmadka abaaraha si weyn oo ballaaran looga qayb qaato, qof waliba awoodiisa. dadka intii hore ee maaragtaa ka qayb qaadatay oo ganacsatadu ay ka mid tahay oo mas'uuliyiinta xukuumaddu ay ka mid yihiin, madaxweynaha qaranku uu ka mid yahay oo runtii aad iyo aad
tabarucaad na soo gaarsiiyey aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa abaarta inuu ilaahay naga soo jebiyo sidoo kale wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan sheekh cabdilaahi daahir jaamac baashe waxa uu ku dhawaaqay biyo dhaamis ay guddidu ka bilaabi doonto berri laga bilaabo gobollada dalka qaarkood iyadoo oo guud ahaan dalka runtii abaartu ay wada saamaysay haddana qaybtii hore ee maaragtaa abaaraha gobollada galbeedka ayaa aad iyo aad u darnaa hadda abaartii gobollada bari bay u wareegtay waxyaabaha ugu daran ama baahiyaha ugu waaweynna waxaa ka mid ah biyo la'aanta sidaa daraaddeed guddiga heer qaran ee gurmadka abaaruhu waxa ay go'aamiyeen in haddii ilaahay yidhaahdo taariikhda berri laga bilaabo biyo la gaadhsiiyo gobollada ay ka mid yihiin gobolka Sanaag oo 100 booyadood oo biyo ah aanu u qorshaynay in maaragtaa loo diro gobolka Saraar 100 booyadood oo biyo ah gobolka Daadmereed sidoo kale 100 booyadood oo biyo ah gobolka Saaxil 100 booyadood oo biyo ah labada degme ee degmada Faraweyne iyo degmada Allay Baday iyagana min 30 booyadood ayaan insha Allah tacaala ugu talagalay in la gaarsiiyo marka deeqda biyaha ah ama gurmadka biyaha ah waxa mas'uuliyadda aanu ku wareejin doonaa oo fulin doona barasaabada gobollada aan soo sheegay iyo guddiyada gurmadka abaaraha ka dhisan gobol walba ayaa qorshayn doona iyagaana insha Allah tacaala sii gudbin doona haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa ilaahay inuu abaarta inaga soo jebiyo raxmaddiisa ilaahay inugu caam yeelo guud ahaan dadka reer Somalilandna waxaan ugu baaqaynaa in la isu naxariisto in dadka loo gurmado in alla bariga la badiyo in ducada maaragtaa qunuudka ah ee salaadaha in maaragtaa la joogteeyo ayaanu ugu baaqaynaa haddii ilaahay yidhaahdo cabdicasiis ciidid cilmi warbaahinta qaranka qasriga ee madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland Hargeysa